beesha dhexe ee Puntland oo shirweyne isugu yimi Garowe ayaa baaq ka soo saaray beel sheegatay beel kale isla markaasina samaystay hoggaan dhaqan kulanka waxa isugu yimid hoggaanka dhaqan ee beesha dhexe oo isaga kala yimid gobolada Bari Karkaar Nugaal iyo Mudug bahaweynta ma jeerteen waxaan leeyahay cali xajiisna ilaahay baa ina la dhaliyay isku dhiig isku jid isku jabad dan wadaag iyo dad wadaag ilaahay baa ina ka dhigay sida ilaahay walaalo inoo ka dhigay baan waxaan idinku soo dhaweynaynaa walaalo dhaba xaqna idinku heliya xaq darana idinka heliya beesha cali xajiisna waxaan leeyahay walaalayaal ma jeerteen baa ka mitiin siyaasad iyo hiil iyo garab laakiin waxaan codsanayaa dhaqanka aan ku leexatay inaan gadaal uga baxdaan oo noo noqota labadaas waa ii labada talo talada saddexaad waa ii baaqo waxaan leeyahay reerka sheegtay ma jeerteen magacana ku qaraabanaya sida Marya Cadda u sheegay waxaan leeyahay wartol baynu nahay intaynu isu jirnay inaan isu soo dhaaf 70 sano jirin arrintan oo kala ka soo qayb galaysa meel lagu hayo isma lahayn waa arkaysa laakiin ilaahay baa saamahayo waa arkayo meel ma jeerteen iyo tumaala lagu kala gurayo waa ii maanta arkay isku leeyahay waxay way sheegteen waxaana jirta dhawaan waxaan maqli jiray waayadaan damo internetka iyo aalad soo korodhay waxa la jabsaday shirkad baa internetkeedii la jabsaday iyo dawlad baa la jabsaday qabaa'ilkii baa hadda la jabsanaya oo la isku kabaal qaadaya ma jeerteen ama xajiislana waxaan leeyahay nimanka isinkii guud oo xajiisla sheegtay yayna la fududaan ugaaskii beelaha daarood baan nahay inay yiraahdaan waxba uma jirto يا خفيف دي الله منا ولا لها يا باشا توالود بان لهي dad walaalaabaynu nahay laba xaq baynu isku leenahay mid waa islaamnimada midna waa derisnimada labadaba inaan isku xurmayno oo isku xaq dhowro baynu leenahay walaalayaal arrinta ka laabta aba faaligelina ka bixiyo nin ogolaan kara isaga qabiilkiisa ama nasabadiisa cid kale inay isticmaasho adduunka kuma noola ama ha yaraado ama ha bato wax kasta ha noqdo dhammaadkii kulanka waxaa laga akhriyay baaqay soo saartay beeshu annagoo ah nabadoonnada waxgaradka iyo aqoon-yahanada beelaha ma jeerteen waxaan halkan ku caddaynaynaa annagoo tix raacayna diiwaanka abtirsiiyaha ma jeerteen iyo sootiilada taariikheed in beesha cali xajiisle ay tahay mid ka mid ah beelaha maxamed hati kuwaas oo degan deegaanada Puntland suldaanka beesha cali xajiisle waa suldaan Cabdullaahi Ismaaciil Shukaan kaas oo bedelay ilaahay ha u naxariistee walaalkii suldaan Maxamed Ismaaciil Shukaan waxaan kale oo aan arrinkan laga tixraaci karaa warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyihii ugu horreeyay ee dowladda Puntland ee gobolka Bari Dr. Maxamuud Caynab Maxamuud ee sumbadeedu tahay kii bishii 2000 soona baxday 3 bishii 2000 ujeedkeeduna ahaa liiska isimada dhabta ah ee markaas ka diiwaan gashanaa xafiiska guddoomiyaha gobolka Bari waxaan kale oo caddaynaynaa in caleemasaarkii ka dhacay hotel Gacayte ee lagu caleema saaray Muxyidiin Cabdi Buuse inuu yahay ugaaska cali xajiisle ahaa mid baadil ah ayan waxba ka jirin maadaama ninkaasi aanu u dhalan beesha cali xajiisle iyo ma jeerteenba waxaan kale oo aan halkan ka caddaynaynaa
in ninka la yidhaahdo maxamed siciid ismaaciil dhahas oo sheegtay inuu yahay suldaanka beesha cali xijiijle ee deegaanada sool cayn iyo buuhoodle aanay waxba ka jirin isla markaana ay ilmo adeer yihiin muxyadiin cabdi buurte waxaa kale oo xusid mudan in aysan ka jirin wax saldano majeerteen ah deegaanada sool cayn buuhoodle waxaan uga digaynaa dadka caadaystay inay sheegtaan abtirsiiye aanay u dhalan oo weliba saldanad ku sheegtaan inay ka waantoobaan si aan dhibkii horay uga dhacay mid la mid ahi aanu uga dhicin waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan ciddii ay husayso inay sidaas uga socdaan. kaasi wuxuu ahaa bayaankii ka soo baxay beelweynta maxamed harti majeerteen.